taliyaha saldhigga qaybta bari degmada Garowe gudoomiyaha xaafadda mas'uuliyiinta kala duwan maamooyinka iyo dhalinyarada waxa ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadalka waa lagu gaadi diyaar uma ahayn marka aan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo kulanka noocan oo kala ah looga tashanayo amniga xaafadda iyo guud ahaan caasimadda Puntland in la isweydiiyo wax la isweydiiyana waxay ka mid tahay waxqabadyada si looga hortago waxyaalaha jira oo maaragtay caqabadaha ah muhiimadda ay noo leedahay amniga iskaashiga wada shaqaynta waxa ku dhisan horumarka magaalada iyo horumarka dadka iyo qof kasta inuu wax noqdo dhalinyaradu markasta iyaga waxay u yihiin hormuud amniga in iyagu ka shaqeeyaan in iyagu iswaansadaan in iyagu u dareeyaan maaragtay dadkan iyo maaragtay waxa uu ku jiro mustaqbalkiisu hooyooyinkuna sidoo kale taliyaashii hadda in la jooga waan kala soo qayb galayay oo qaybta reportka iyo wax kasta inuu kala la wadaagteen waa ku faraxsanahay in meel amniga looga hadlayo iyagu ay joogaan oo ay ogaadaan fikradda hooyooyinka dhalinyarada iyo aqoonyahanada kale ee maaragtay ku sugan si ay marka uga qaataan cashar u noqonaya maaragtay qaababka maaragtay hawlgalkooda u fududeynaya hadda iyaga lala shaqeynna micno ma sameynayso kala hadeertaan isbedelada kuma eka dawladda madaxda sare kaliya kuma eka laakiin taliyaasha ruuxa taliyaal dhalinyaro ah oo shaqeynaya oo bulshada waxyaalo badan la wadaagayo oo u imaanaya baa u jeeda waxa la iyagana ilaahay maaragtay shaqadooda hal garab siiyo maaragtay sida ugu fiican laakiin waxa laga rabaa shaqadooda in la xoojiyo haddaan la xoojino wax ma noqonayso wax miro dhala aan dhalinyarada xaafadan ka mid ahay kolla waxa ugu jeclaa waxa weeyaan in xaafadu ay noqoto mid amniya la isku haleyn karo la soo dago hadda sheekooyinka magaalada kale marka tira xaafadoodan waxa lagu leeyahay waxa ka mid ah xaafadda waxa ka mid tahay tartamo iyo haday noqoto anaga xilligeen iskuulaadka arigan jirnay xaafadda la yiraahdo tartanka iyada ka gashay iskuulka iyada ka gashay laakiin hadeerta dadku waxay ku leeyihiin xaafadda degan tahay xaafadda xoogaa si kale waxarna waxa dhalinyarada joogta baa la rabaa inay magaca suuliyo anaga xilligeyga xaafadda waa ku faani jirnay waa lagu faani jiray sidaas la midana waxa ku imaan ka dhaakiliye waxa weeye idinkoo ka wada shaqeeya dhanka horumarka isdhexgalkiina xoojiya iskana warqaba aan ku soo dhexdhoowan booliska iyo degmada iyo waalidiinta iyo nabadoonnada iyo si wada jira oo la shaqeysaanin wixii kaalinteena ka dhalinyar ahaan waa ka qaadanayna inaan isku duubnida muujino mustaqbalka waddanka kan xaafad kaliya ma ahan magaalo ilaa gool wuxuu ku xiran yahay waxa weeye dhalinyaradu sida hadda noqoto haddii uu fakaraanin dhinaca negative-ka wuxuu noqonayaa waddan aan la soo celin karin oo burburay oo iska tagay aan waxba laga qaban karin haddii aad rabtaa in ilmihiinu wanaagsanadaanin mustaqbal yeeshaan shaqaystaan dad noqdaanin iyaga marka hore xaafadda ku soo dhiso ku soo waaniye iyaguna markaas talooyinka muhiimka u anfac u qaataan ma jiro qof heer ka gaaray waxa loo yaqaan inuu noqdo saaqid ma waxa maqashay saaqid hebel oo ku guuleystay bilada noocaas ma jirto laakiin qof waxa horumar ku sameyn kara waxa weeye kaliya waxa weeye taxaddar iyo aqoon inuu qofku sameeyo wanaag dadka u sheego inta waa lagu amaani karaa laakiin wax kale lagu ma amaani karo marka hadalka waa dheereeyay diyaar baa u nahay wada shaqeynta idinkuna u noqda السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.